امس waxaan ka hadlayo ma dhibaataas ay jirtaan fahamsan qabiilku madaxuuna horta maskaxdu bana madoobeeyo qabiil mooyaane life la soo galaya bas qabiil in wax la doono mooyaane dadku ma jeclan fahamsan in wax bixiyaan qof walba wuxuu doonaa fahamsan qof walba lacag uu doonaa fahamsan qof walba wuxuu doonaa anigu waxaan doonaa laakiin way yariin dadka jecel inay waxa ayagu helayaan dadka la siin karaan fahamsan anadan maanta $100 helo way fiicnaan lahayn $50 qofkaas siin fahamsan sababtoo ah anigana way caawinaysaa isagana way caawinaysaa marka muhiimadda aan live-ka u soo gali doono insha Allah bisha 18keeda iyo 19keeda labada isha macnaha live-ku ahaana telefoonka saas u darana waa delete gareena application walba macnaha qof laga soo wici karayo waxa macnaha sim card ka saara wifi ka xiriirna fahamsan labada isha telefoonka live ka soo galena labada isha wax isku daynaa inaan soo qaban karno inta de iyaguna aqliga leh macnaha Soomaalinimada aaminsan ee rabtay walaalahooda wadankii jooga caawis anu dad qurbaa jooga ma caawin fahamsan dadka qurbaa jooga dhirigsan yihiin hadii ayna shaqeyn karin ay bay qaataan fahamteen marka wax isku daynaa dadka wadankii jooga muhiim ma aha inuu qofku joogo maxalada berbera muhiim ma aha qofku inuu muqdisho joogo muhiim ma aha qofku inuu jijiga joogo muhiim ma aha qofku inuu maxalada xayaabli joogo muhiim ma aha inuu kartoonli joogo muhiim ma aha inuu muhiim ma halku joogo wax isku daynaa meel walba insha Allah ina ka caawin karno fahamsan macna waxa isku dayaa insha Allah haduu ilaahay yiraahdo anu inaan tago meel walba haday ii dib yaraato fahamsan oo macna wax igu soo bixin sababtoo meeshana joogno imika in badan ma kamanaayo waxyaabo badan baa ii harsayna sameeyo degdeg uma safri karaan fahamsan laakiin waxa isku dayaa insha Allah hadii ay ii suurto gasho Cabdirasaaq ahaan anu ina meel walba tago goboladaas dadku ay macna wax ugu baahan yihiin oo dhan caasimadaha ma fahamsan meelaha aad kale ugu gaajo waa gobolooyinka iyo tuulooyinka meelaha biyaha ma fahamsan caasimadaha qof walba macna shaqo u heli karaayo aad buu dhibartaa qofku inuu shaqaysto marka insha Allah sida rabno sida haduu ilaahay yiraahdo saa hore idinku sheegayna Kenya noqoni ama waxay noqoni Sweden ama waxay noqoni Austria saddexda meelood meel bay noqoni insha Allah waxaan rajeynayaa in ay macnaha dad badan oo iyaguna caanay garabkay joogi doonaan haduu ilaahay yiraahdo macnaha waan soo bandhigayaa fansiiniya sidaan wax u rabnayna u sameeyno sidaan u rabnayna wax u caawino maxaa dadka qaar in TikTok iyo waxa daawan TikTok iyo waxa garin ama aan jeclin meelahaasna insha Allah wax isku daynaa in aan macnaha YouTube ka ama Facebook ka ama Instagram ka ama Snapchat ka tigran fahamsan sababtoo ah meel walba Soomaaliyeed joogan joognaan fahamsan marka qaarkood waxa fiican waxyaabaha aad haysatid alxamdulillah anu imika macnaha meel fiican ma taagna nolosha fahamsan aad meesha ugu fiicnid ma taagni oo macnaha wax walboon doonaya ma heli karan fahamsan laakiin waxaan taaganahay heer aan isleeyahay maxalada qofka wad ku caawin kartaa nimada u geysay dadna lacagta u geynaysa fahamsan takanla boqolkiiba 90 imika dhibaatada socota waxa weeyaan dad aan macna game caadi ciyaarin oo macna qabiilku ciyaaray oo soo galin qabiilku ciyaaraan macna dhibaatooyin badan bas ka jiraan fahamsan oo TikTok to yara waartan fahanteen hadaan meel walba aragtiin macna meel walba daawatiin macna meel walba la socotiin qabiil baan naga yar waalin fahamsan macna waxaan gaarniba heer ay Soomaalidu ku faraxdaba imika salaano Cabdirasaaq Abdiya aan ku farxo oo yiraahdo anaga adeerada gumaadnay anaga abtiyaasha maxay ku sameeyeen heerkaasaan gaarnay fahamsan mana aad baan yar fogaanay fahamteen mana waa tii ugu xumay waana inaad qof ku tira adeerkaaban gumaaday iyo abtigaaban gumaaday waxa waa tii ugu xumay fahamsan mana waxaan aaminsanahay inay jirin baba heerka ay maanta naga gaarsiisan tahay heerka si weyn ma fahamteen mana waxa lagu faanay in qof Soomaaliya ciyaalkiisa ama abtiyaashii dishay fahanteen marka adoo dhibto iska badan tahay aad baa uga xunaay in dadka qaar xaga ka gaadho macnaha mid waa midood qofku oran kara anu waxaan rabaa inaan gobolkan ka soo jeedo ku ciyaaro ama waxaan rabaa inaan qabiilkan ka soo jeedo ku ciyaaro laakiin in ay lacagtu ku hor orodood macnaha gaadid heer aad tiraadid anaga dadkaaga dilay waa wax laga yar qurux badan yahay fahamsan anu macnaha taa waxaan arkaa too much weena yara fool xumaateen fahanteen macnaha qof walba imika dad buu macnaha ku tashtaa oo la socdaa fahanteen qof walba dad la socdaa qof walba dad buu xiriyaa qof walba dad buu isleeyahay dadkan ku daba dhuumadee dad aan waxa macajira aan weligood qabiili waxa aqoon oo macnaha oran jiray a'uudu billahi min sarij ma qabiil mi gida oo imika dad kale ku daba dhuumanayeen fahanteen macnaha yara fogaan ilaa saali adu miimadu waxa weeyaan dhanka qabiilkii qabyaaladii waxa aad baan ugu fogaanay fahanteen macnaha sidii loogu talagalay ma sidaan macnaha sidii ugu fiicneed ma fahanteen laga dadaan soo codsan waxaan ka hadlaynaa marka waxaan rabay horta inta inaan ka iraahdo arintan
qabiilkii waxaa fadlan iyo kula fogaanin manaa waa muhiim inaad qofka tahay ogaatid waa caadi waa taageeri kartaa qofka qabiilka ka soo jeeda dib ma jirto waxa fahmaysaa oo day qof walba kulli dad buu ka dhashay laakiin waxa oran lahaayeen idin leer fogaan manaa si dadka qaar imika live fan soo daawaday habeenna hore iyo live fan manaa u daawaday bade oo manaa qabiil loo dheeliyay in la gaaray macal heer la yiraahdo kuwi dadkiini dilay baan ahay waxa fahmis manaa way isku caayayaan iyo waxay moodayaan waxa afaan laakiin waxa wax qurux badan ma aha oo dad baa lagu qaadi karaa dadka qaar waliba waxyaabaha ku hadlaya dad Afrika joogaanba qof dadku South Africa jooga dadkiina la laayo MCCna dadkiisi la isa adigana ku layn fahmisa wala taas baa reportina ka hadlo taan meesha soo galnay waxa weeyaan dadku waxyaabaha qaar ba ilaawan fahmisa inaad mana Afrika soo jeednay ilaawan waxay ilaawan inay dad badan boqolkiiba 20 ama 30 Afrika lagu gaajoonay ilaawan marka wax isku dayanaa in aan insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo waa sababtaan telefoon soo galay haduu Ilaahay yiraahdo insha Allah 18 bisha iyo 19 bisha si doonto baan noqoto macal waxaan sameeynay mana meel kale oo wax laga donate garan karo aan caawino masaakiinta mana ku sugan wadankeeni ha ahaato laanta ha ahaato maxaa la jijigada ha ahaato maxaa la meel badan qofkan soo qabsanay imika la yaaran rabin muxuu soo qabsanaya qof ay soo qabsantay risugi mana meel badan dad caawinan doonaan fahmisa wiilba aad ugu soo celinayay ilaa maalin hore rabina game la ciyaaro xaq isla joognay yeer joog dad balay hadlayay soo qaban doonaa marka game kan insha Allah waxa rabnaa haduu Ilaahay yiraahdo soo socda waxaan isku dayanaa dad badan oo caan u yeero dad badan oo maanta TikTok meelaha ku jiro yeero iyo la qayb qaataan waxaan isku dayanaa insha Allah in aan Ramadaan dad baa jira macnaha aan garnay halkii ku afurlaayeen dad baa jira macnaha aan garnay halkii ka suxuurin lahaayeen insha Allah waxaan isku dayanaa maadaama uu qabiil buu wax loo dirayo oo macnaha leeyahay qabiilkayga wuxuu dirayaa in macnaha la yar eego dadka gaajoonaya inaan taayiluna ma fahamsan alxamdulillah aad wad dheregsantahay kulli aan wad dheregsanahay dadkan kale qabiilada ciyaar ay dheregsan dadkan kale loo ciyaar ay dheregsan laakiin dheregaas ba inay iluusiin inay jiraan dad badan oo gaajoonaya fahamsan macnaha dheregu wuxuu ku gaarsiin yahay macnaha moodidun adduunku inuu aduun wadaya macnaha wal cabaa wax walba meel bay saarin laakiin dadka qaar baa gaajoonay macnaha taasan yari loona fahamsan waxaas noo dherega qof markuu dhirko waxa badan biilaawa marka insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo waxaan isku dayanaa in aan labada cisho ku caawino haduu Ilaahay yiraahdo PayPal iyo waxyaabahan waan sameeynay isagana macnaha waxaan isku dayanaa inaan macnaha isticmaalno on donation ahaan meelaha u soo dhigno Instagram-ka iyo Snapchat-ka iyo YouTube-ka waxa macnaha meelaha waaweyn isticmaalada marka inta aan rabay inaan idin hadlo waxay ahayd in aan dadka gaajoonay caawino meeshii doonaan joogan malaha Soomaalidu aad bay u kala fufugtaan fahmaysaa dad waxa jira dawlad ahba oo kala baxay dadna waa dad wali is haysto doonayda inay kala baxaan dadna waa dad wali isku wada jira marka inagoo Soomaalidaas oo dhan doonayna inaan ka wada hadalno insha Allah ama aan wada caawino haduu Ilaahay yiraahdo ayaan live ka soo gali doonaa waan caawin doonaa haduu Ilaahay yiraahdo balwiilkan baad igu soo celiyaan leer hadal la balwiilkan qabiili waxa saaxib ilaahu saar dadka horta qabiili waxa sameynaya jooba qofka la yaarnay qof kan baa la hadlaynaa bal nolol haldu rabaa bal malinaya jirani hooy markeen nolol Allah u naxariisteen waxa wadana isku cabitaan shuwaneena aniga keeyga iima dhadhama keeyada cabtay ay gacanta ku haysataan raba dacalka kula dhaganaana maanta dhan markaas ka marka adiga ku dhala dhuuni ka bil wax la isticmaali lahay man nasano filinteer bil wax la isticmaal la hal awal cunoya wiilkaas ani isaga walaalaan ani isaga walaalo raashinka caadiga loo kari mariba qashin marka waa dhinta man caaw cashmar cuni karam ani wallahi jibsi u iga darji wallahi arjaalin waay please arjaalin ya bilaawi saddex hadana waana la siiyay challenge waana la siiyay wax ka faa'iideysan saddex fiyor wallahi saddex fiyor dag aw challenge waa ciyaar saddexaad oo challenge la siiyay oo ka faa'iideysanin laba isla soo gashay dawlo hala dhiman hal baa noo dhiman hala noo dhiman hal ninkina ma isoo qaban rabaa saas in inda u taagtaagay idinka bas waaye waxaan itusuga babe
يعقوب اه وان دغا اساقبو because واحد ما جرى live kayga ranking ma tusaayo weekly mi tusaayo mana i tusaayo dadkayga so ani dega ana adigu soo qabanay sugsa ugu jiro اي